السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا سلامة خيارتا مقعي قوة إسناجي سو دوادا قعمو فرنكو سو دوادا maantay waxaan rabaa inaan halkan usoo fadhiisto rabaa inaan ka hadlo waxa weeyaan horta maanta dareenkayga aad ayuu u kacsan yahay aad iyo aad ayaan u xanaaqsanahay laba maalin ka hor meeshii aan ku dhacay ayaan hadda ka soo kacay waxaan ula soo kacay waxa weeyaan ciil iyo caro ayaan la jiiftay ciilka iyo caradaasi hal qof oo mataqan dadka iiga dhaw ayaa ii geystay aniga kaliya iima geysan intaas oo qof 4 milyan oo qof ayuu u geystay iyo inka badanba arrintan saa ogtihiin akhyaaray waxaa ciyaarayay maamul goboleedyada ka tirsan Soomaaliya ayaa ciyaar loo sameeyay ka Puntland marka taas ayaana taageeray qof walbana qof ayuu taageeray maxumayna qof taageertid maxuma meesha u dhalatay inaad taageertid qof walba ayuu taageeri karaa ifan qofaan xitaa waxa uu qofaan yani taageerin meesha u dhashay aan taageera maxuma yaa ila haray walaalkay baa ila haray maxamed maxamuud saqraawi ayaa ila haray waxa raba fiidiyoga inaad ku cadeeyo inaa walaashiis maxamed maxamuud saqraawi wiilka ila haray wuxuu u dhashay Puntland ayuu u dhashay muxuu ahaaytay waa heer booso waa wiil walaalkaya runtii aad ayaa qoxmaada guuldarrada oo anagana gaarsiiyay lugtiisa ayuu nagu toogtay anaga galmudug waxa u qabnaa malahan waayo waxaan la ciyaaraynaa ka soo horjeedna galmudug ay ahay maalintii hore inkastoo ciyaaruhu iska dhexgal yihiin haddana qofkii dhibaatada noo geystay waa wiilkayagii waa cadkayagii waa magaranaysaa wax walba ayuu noo yahay dad badan aa ku doodayo ama hadda fiidiyowan ka soo hadli doono oo dhahayo ciyaartu qabiil male ciyaartu bahashii male meeshaan qabiil ma laga hadlin cidna hadda ilaa hadda qabiil ma soo qaadin kaliya waxaan ka hadlayaa guuldarrada uu noo soo hooyay wiilkaas ayaan ka hadlayaa guuldarrada uu noo soo hooyay maxaa ka mid ah inuu anaga naga soo horjeestay haddii 4 qof ay ku ciishay inaa ma ahan adna aa ciishid 4 milyan oo qof dadka aa ciishay iyo dadka aa mataqaanaa ka farxisay maba nanow maba isleekaba marka anyway aniga maanta meesha layga jaro dhiigba ka imaanmayaba aad baan u xanaaqsanahay wallaahi marka khayar anigoo ah maxamed maxamuud saqraawi walaashiis waxaan ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed iyo qof walba taageeray Puntland oo ciyaartaas daawanayay oo xamaasad u qaaday reer Puntland oo raali noqdo madaxa noo saaran raali noqdo wax allaale wuxuu wiilka yarka idin gaarsiiyay karaale guuldarrada uu noo soo hooyay wiilkaas guuldarrada uu noo soo hooyay yani waxaan ka wadaa uu naga dhaliyay anagoo dadkiisii anagoo mataqaanaa ii sheeg meesha uu ku dhashay meesha ku soo barbaaray uu maanta sidaa u galay qofkii taageero adiga ku taala laakiin aniga wax aan aniga marnaba ku qanacsanaa ma baahanba wax aniga marnaba ku qanacsanaa ma haddii la ciilay meeshan waa hadli kartaa haddii lagu yiri ma ciyaari kadid haddii maanta lagu yiri waa yar tahay adiga lagu naxay maaha in lagu yiraahday maxaa la dhahay ii sheeg ma kugu darayno ama qabiil lagu reebay maahan haddii waa yar tahay lagu yiri waa dadku jecelo ka fakaraya inay dhibaato ku soo gaarto oo ummadan lafaha weyn dusha ka marto mid kale halkan ka dirsanayaa muxuu ahaa xulka u ciyaaraya galmudug anuu ka muxuu walaalaheen waa dariskeena waa dariska xalaasha waa dadka noogu dhow maanta ma fahanteen laakiin kaliya waxa idin sheegaya idinkana wiilka yarka amaanu idinku yahay walaalkay way ma fahantaa amaanu idinku yahay dhibaato haday soo gaarta maanta yaa ama ciyaartan soo socotay banaadir idinku ay isku dhici doontiin ay galmudug isku dhici doonaan wiilkaas dhibaato haday ka soo gaarto oo uu jajabo hadii idinka u maqan way idinka dadkiisii raali ka ahayn ka haystay idinka ma taqaan idinku cidna kala tashan ka haystay ilmaha yariiska dhibaato haday soo gaarto wiilkaas maanta idinka la idin haystaa ogaad taas ayaa idin sheegi lahaano tan kale aan ka hadlo waxa weeye asagana waxa uu sheegayaa waxaan ku dareensiinayaa inaa khaldanta gar iyo gardarba haddii laga khaldiyo adaa sii khaldan waayo anaga haddaan nahay reer Puntland ma lagu aqoonba inaa mataqaanaa aan isdhabar jabino no way waxa isku naqaanay ma ahayn waxa dhacdayna ma ahayn marka waxaas oo dhan aniga waxa ku raday aad baan u xanaaqsanahay bas sideedaba aad ayaa u xanaaqsanahay runtii waxaan ka xanaaqsanahay wax kale ma aha wiilkaasi naxdinta uu noo geystay waalidkii walaalkii kii dad ugu dhawaa
kii maxaa la dhahaa la dhashay yacni qof uusan maanta dhaawac u geysan qalbiyana maba lahanba oo Puntland ka dhashay waa meeshuu kasoo mataqaana kasoo jeeday waa meeshuu intaa kusoo leekaaday ma na dabar jaran ma ahayn